asalaamu calaykum maadaama aan soo wado maalmahan yar ee soo socda buug muhiim ah inta ka horreysa waxaa laga maarmaana mar kale in aan kula wadaago xalaqo kale oo shaashada isla maanta xalaqadan runtii aad iyo aad ayay muhiim u tahay waxaan kula wadaagi doonaa aan isdul istaagi doonaa runtii umuuro u fiirsashada caalamka maanta dhacdooyinka caalamka maanta markaan aragnaan isleenahay waa markii ugu horreysay waxaan arki doonaa Elon Musk midigta Trump yani inta ku mabda'a iyo fikirka dhisidda shay aan ku tilmaami karno haddii aan adeegsano kelmado aan fahmi karno khilaafo midig ah yani ila sawir heer Elon Musk oo maanta marayo shay aan ku tilmaami karno waali inuu u magacaabayo Jarmalka in uu Ingiriiska leeyahay ninkaas taageera ninkaas ayaan micnaha lacag ugu tabaruca Jarmalka uu leeyahay midkan ayaana matalayo oo xukuumadaha liberaaliga galbeedka maanta ay qaati ka taagan yihiin ninkan waxa ugu dambeeyay maantadan la taliyaha Jarmalka Ingiriiska warbaahinta ay leeyihiin micnaha si toos ayuu umuurahanaga usoo faragelinaya bal xitaa waxaan arki doonaa Elon Musk inuu ku baaqayo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska in la xiro in la maxkamadeeyo in maxkamadaha bal xitaa booliska uu ku leeyahay waa boolis mafia ah dowlad uu ku tilmaamay micnaha waqooyiga Korea oo kale markii ugu horreysay aan arkayno xukuumadda Ingiriiska iyo saxaafadda Ingiriiska oo ka cabanaysa micnaha cid kale inay soo faragelinayso siyaasadaha Ingiriiska subxaana mughayr al-ahwaal sidoo kale waxaan arki doonaa wufuudda galbeedka ee ku sii qulqulaya Suuriya iyo ayaga iyo Axmed sharciga Suuriya wax kala haysto gaar ahaan waxa ugu dambeeyay wasiiradda arrimaha dibadda Jarmalka ayadoo dhar yani aan munaasab ahayn xiran gacantana ku wadata qof aan ku tilmaami karno dalaalin wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska wasiirka arrimaha dibadda Emmanuel Macron oo Axmed sharc rabtay micnaa inay ama si isu muujiso kadibna uu yiri yani halkaas kuma salaamayo wasiirka arrimaha dibadda Faransiiskana oo labada farood sidaas ugu salaamay asagoo waliba luqadda body language markaad fiiriso sidaas isu yar qaluuciye gacan ay ku salaamay wallahi alcaadim aniga hadda qof aan markii wax kale laga soo tago shay micnaa waliga aan ku taama in yani halkan ihaana kama hadlay qof bini aadam nooc hadab in la ihaanayso diblomaasiyadana ka mid ma waxaan ka wadaa in markii ugu horreysay aan arkayna mas'uul galbeed ah qof hogaamiye dal muslima oo la dhaqmaayo معناه إني بني آدم يهين معناه هذا دي قف تمر كاجر وذي فضلا قاعد سيني على الأسط والشيء معناه ولجن أنكو تاميني مسؤول قلبات أو صدق معناها بني آدم ماذا أنا لقى سهريني أنا أنت نالي وحنون أركجرني أيقو لتقديسنا أيو أنا سوال دلك هذا أيقو جوج معناه وحكو ميرنا يان مرك إنسان لا رقم مرتي وشيء يعني أوفر سشالة هذا مواضيع ذا أيان استول استاجينا كوب كذا شاهة وأنا وعمر شار يا أهلا وسهلا haddii aan ku bilowna arrinka Elon Musk mudanayaal imarooyin daqiiqadan hadda aan kula hadlayo wuxuu ku jiraa dagaal ka dhana xukuumadaha Ingiriiska iyo Jarmalka gaar ahaan Ingiriiska micnaha maalmihii hore ee la soo dhaafay Twitterka wax kale uma u adeegsanayo ay aflagaado diblomaasiyad ka fog inuu ku tilmaamayo mafia inuu ku tilmaamayo dictatoriin inay yihiin inuu ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ku tilmaamayo micnaha wax walba xunoo niyadaada ku soo dhacayo ila sawira wuxuu gaaray inuu ku tilmaamo micnaha gabdhaha yar kufsigood inuu kaalin ku leeyahay Jarmalka xukuumad aslan Jarmalka xukuumad ma ka jirto macna maxad u tir xukuumadda Jarmalka bisha saddexaad ee soo socota waxa ka dhici doona doorasho sababta xukuumaddu waa tii burburtay waana qayb ka mid runtii mixanka iyo mashaakilka haysta xukuumadaha liberaaliga galbeedka oo Elon Musk iyo kooxdiisa ay leeyihiin wax mustaqbal galbeedka kuma lahan معناها مفهوم كذا إيلون ماسك وكسعة رونتي هذه مركل أنا ذيك سنة كلمة أن يعني أضو مقلنا وحنقول المامي كرنا الشكل الآن معناها مفهوم جهاد عالمي لكن لنا عاس ميديك تاس قلبات كمسيحي كريستان كا ولاهي معناها مثلا هبل قيم كقلبات كمان متلايو إنجليز كا عدة نمتليس أنا جوا هبل العق قلت بروع ما أركضنا فرنسيسكا ودن هبل جرمالكا وحنا متلايو هبل يهبل أو حكومتها قلبات كمعناها أي قاتك تاجينهين marka ka hadlayna Elon Musk macna kelmadaha uu jeedinaya dadka uu taageerayo marka ka hadlayna macnaha Ingiriiska cid u matalayso Jarmalka cid u matalayso wadan hebel cid u matalayso Talyaaniga macnaha ma ahan kan doorta ee waa hebel macnaha wuxuu adeegsanaya kelmad fiiriye hebel wuxuu badbaadinaya Ingiriiska hebel wuxuu badbaadinaya Jarmalka hebel wuxuu badbaadinaya wadan hebel hadaba arrinka UK arrinka Ingiriiska hadii aan u imaano ninkan waxa lagu magacaabaa Tommy Robinson ninkan waa ninka inta badan uu Elon Musk 24 saac ku baaqay micna in la sii daayo uu leeyahay sii daaya ninkan mudanayaal marweyn wuxuu ku xukuman yahay 18 bilood oo xabsi ah sababtoo marka koobaad waa Sahyoni waa Islamophobic
وعنصري معناها واحد وكوكتيل معناها نيادة كسر دعاي معناها ومادة عيرين كعنصرية حمان طولا بل حتى وحاجر مقالة مرة يعني كهذا مرة ودي بدبح كده على إنجليز بل حتى وحاجر صورة أسوق قصة ضعفها غزة أو عيدا كإسرائيل وحقوق تبرعاية معناها إنجليز كأما أين حيرين أرن كان أو حيقو حيرين معناها الربشة يقال لا سبدا إنه سمي كدبنا محكمات أيالا صاري 18 بلاد أيالا كحري هذا نينكاس إسلاموفوبيكا نينكاس سهيونيكا نينكاس عنصريكا نينكاس معناها فكر كاس آمنسن أيو إيلون ماسك ليهي نينكان معناها وانين مناضلة وانين هليئة وانين كان هلسيداي markaan ka hadlayno midigta xag jirka sida Elon Musk tara markaan ka hadlayno iyo xitaa kuwa kale macnaha waa hal group sida hadda مثلا markaan ka hadlayno sidoo kale cidda ku taageertay midka Netherlands-ka Holland markaan ka hadlayno Geert Wilders oo طبعا cunsuri aan ognahay kelmad walba soo qor Elon Musk uu ku taageera ay shay macnaha islaamka lidku ah ummadaha kale lidku ah yani bal xitaa xukuumadaha kale ee liberaaliga galbeedka lidku ah uu ku taageera intaas kuma una ekaan Elon Musk markaan ka hadlayno رئيس الوزراء إنجليز كوحو باقي معناه إنه سعسله وحكوليه وحد كالين كل هذا قضيات معناها مرة رأهيد أو يعني وقت الإير كير رأهيد أو لجوء هذين معناها نمان باكستاني معناها لبعض سنة قرصاص أهيد ضلني رب باكستاني لجوء هذي معناها كوفسي وحياباس لحريرة وليه معناها نين كان كالين أيو كله كوفسي كاز وحو باقي معناه إنجليز كا نين كان أدر ذان معناها محكمة هي أنت سكمون إكانين معناها واتي أن يروح كوباق كو إنه إسعسله إنه كقيب قال معناها كوفسكاس إنه كالين كله يعني إلى صور عالم كمركي نين يعني إيلون ماسك أنا قانا وحو ساقر معناها لبا بقولوا مليون وقف صالان أساك شخصيان تويتر كلا صعدان أنت ساقف معناها أي وربهنت إيش أي كويس كلمة دول بوساقرة كدبنا أوريد الوزارة إنجليز معناها كنت الماما إنه ينين تمرك كوفصادة وينين معناها دولة معناها بوليس استيد وكيلها إنجليز كنت الماما شيء وحاورنتي intaas markaan ka soo tagno qodobkan kama aanan bixin Elon Musk Ingiriiska markaan ka hadlayno macnaha faragelinta Ingiriiska oo ku sameeyay markaan ka hadlayno waxa laga hadlayaa macnaha tabarucaadi ugu weyn ee taariikhda siyaasadda macnaha taariikhda Ingiriiska inuu sameyn doono tabarucaadi ugu weyn ee taariikhda Ingiriiska inuu ninkan waxa lagu magacaabaa Nigel Farage magaciisa macnaha wuxuuna ka mid yahay xubnaha aan ku tilmaami karno yani ولاية ماسك إنجليزك والله العظيم أيو كم دي هاي معناها وانك أوروبا قاية وانك أنت بدن أوكوت الماما إنه هاي معناها نينك إنجليزك بدبادين هاي نينك وحكولي هاي أما نينك أساك الشخصين مركان كهالي كو مركا لغبصة وميدك لدكو أورورada عالمية سيدا ميدوغا يوروب قرمدا ميدوبي سيدا الأمانتد يعني هداد أفرسطة ميدكتا إيلون ماسك ترامك أوين وعذاركيسا يعني هي قرمدا ميدوبين هنا أقونصانين يعني واكي كجري واجي هوري مركي وقت جاره ترام واكي كجري WHO ده معناها هي ده أدونك محيط هو معناها هي ده عافماتك واكي قندي أمريكا كسين جري كجري وكان كوباقي معناها ناتو إن هذه حكومة والبا intaas ayna bixinin oo iskaga baxaayo micnaha ma aqoon sano ninkan Nigel markan ka hadlaynana waa dadkii u ololaynayay in Ingiriiska midowga Yurub uu ka baxo micnaha Brexit kaalin weyn ayuu ku lahaa haddaba Elon Musk warbaahintu waxay qoraysaa daqiiqadan in $100 milyan oo ugu tabarucayo ninkan si uu u bedelo ra'iisul wasaaraha micnaha si uu mustaqbalka u qabto Ingiriiska laba isbuuc ka hor ninkan Mareykanka ku kulmeen micnaha Elon Musk iyo ninkan Mareykanka ku kulmeen asagoo leh waa ninka Ingiriiska badbaadin micnaha markaad u fiirsato hadda kelmadaha uu adeegsado yani waxaad arkaysaa in uu kelmadaha uu dooranayo micnaha uu ku leeyahay Ingiriisku badbaadinaya shucuubtaas micnaha galbeedka markaan ka hadlay intooda badan siyaasadahan iska indhaxiran yani hadda macluumaad yar soo martay waxa jirta 25 milyan oo Amerikaan 25 milyan oo Amerikaan ama 23 milyan wax saas oo kale ah ayaa aaminsan caanaha maartin shokolaatada caanaha shokolaatada micnaha laga sameeyo shokolaatada caanaha la isku qasaman taqaana ama casiir ahaan meelaha lagu gado in 23 milyan oo muwaadiniin Amerikaan ay aaminsan yihiin in caanahaas laga keeno shokolaatada lo micnaha midabkeeda uu yahay micnaha sidaas uu yahay brown uu micnaha brown sida shokolaatada uu egay midabkeeda lo'da micnaha nooca midabka noocaas leh ay aaminsan yihiin marka waa shucuub inta badan caalamka wax ka socda aanan daneynin juqraafi aanan daneynin adduunka wax ka socda hadii la dhaho ay cid ba iska hogaamin karto micnaha hadii la dhaho
ninkaana idin badbaadinayo hebel iyo muslimiinta ayaa lid idinku ah kan ayaa lid idinku ah micnaha si in dhalaan ay u raacay waana midda Elon Musk uu aadka u isticmaalayo leeyahay hebel micnaha taageera maahan hebel waa badbaado micnaha wuxuu ku leeyahay jarmalka ninkan ayaa badbaada ninkan midkaana hebel ayaa badbaada jarmalka markaan ka hadlayno yani barakada Elon Musk dagaalkan uu ku jira oo la jeedaa micnaha jarmalkana way gaartay jarmalka waxaa ka jira urur aan dhihin micnaha xisbi midig ah sidoo kale isku mabda yihiin isku falsafo yihiin AFD jarmalka midig sidoo kale xag jir ah haddaba Elon Musk wuxuu ugu baaqayaa dadka xisbigan micnaha in la taageero ninka hogaamiya ayuu ku baaqaya in la taageero heer islaamaantadan yani la taliyaha jarmalka Olaf Scholz uu leeyahay micnaha wuxuu leeyahay saamaynta uu ku yeelanayo jarmalka ayaan ka xumahay lacagta uu ku bixinayo ayaan ka xumahay malaayiinta uu ku fangareynayo ayaan ka xumahay jarmalka siduu noqon doonaa mustaqbalka jarmalka siduu noqon doonaa kadib markii xukuumaddiisu ay dhacday micnaha hadda ninkan la taliyaha jarmalka waxaad ku tilmaami kartaa micnaha geed aanan xidida lahayn hoos laga jaray micnaha daqiiqad walba uu dhici karaa uuba dhacay aslan micnaha waxaa ula jeedaa micnaha waa intuu un ka qalalayo micnaha hadda ninkan micnaha waa sidii geed aad hoos ka goysay oo kale oo aad ka sugaysa micnaha laamaha intay ka qalalaan bisha saddexaad ayaa waxaa dhacaysa doorasho inay usoo daliishanayna aslan arka xukuumadaha sida ay yihiin waa inaan midigta taageernaa Elon Musk markaan ka hadlayn uu leeyahay haddaba qodobkan ku saabsan Elon Musk intaan ayuu ku egyahay aanu imaano Axmed Sharci iyo Suuriya aanu imaano markaan qodob la xiriiro Suuriya dal aan jecelnahay dhammaanteen Suuriya طبعا ضمانتين waxaan ognahay isbedel inuu ka dhacay siyaasadeed yani xukuumadaha galbeedkana maalmihii hore ee la soo dhaafay si waali ay ugu qulqulayaan Suuriya marka koobaad hadii aan siir cadaalad u hadalno xaqiiqa minaha dhamaanteen ku socota yani maanta hadii aad isweydiinayso Yurubiyaanka iyo kuwan minaha sidii caalamka ku qabsadeen runtii minaha meel eber kama ayna imaanin yani hadda fiiri Suuriya isbedelka markuu ka dhacay ayaa kuma dhahan jamaaca hebel ayuu hebel ahaa ka soo jeeday micnaha waxay ku leeyihiin qudiyal amr Bashar al-Assad uu dhacay meeshana nidaam cusub ayaa ka dhashay saacadana dib uma celin karno sidaas darteed waa inaan la tacaamulnaa micnaha waaqicaan hor yaalo waa inaan la tacaamulnaa waxaadna arkaysaa inta badan waaqica inay la tacaamulaan inay isku dayaan inay soo jiitaan inay isku dayaan inay gataan micnaha waa mid kale laakiin ayaga umuuraha markay qiimeeyaan waana sidii yani xataa siyaasadda markaan ka hadlayno wasiirkii arrimaha dibadda hore ee caanka ahaa Henry Kissinger micnaha wuxuu lahaa anaga waxaan isticmaalnaa falsafo مثلا wuxuu yiri dal ayaa waxa ka dhacay dagaal sokeeye ama nooc u ahaadaba wuxuu yiri waan aamusnaa waan fiirsanaa micnaha waa siyaasadda asagu adeegsan jiray waagaas micnaha wuxuu yiri markii labada dhinac ay isku gubtaan ee micnaha isku dambasoobo dhinaca aan u aragna micnaha kafadiisa micnaha inay yara korayso oo asaga micnaha mustaqbal siyaasad uu leeyahay wuxuu yiri dhinacaas ayaan wuxuu yiri micnaha mirahan guranaa siyaasadda uu leeyahay micnaha waa gurashada mirahaas sidii inaad kaalin ku lahayd oo kale in hadhow mustaqbalka xiriir wanaagsan aad la yeelanayso micnaha daqiiqada ay ka faa'iideystaan yani hadda maanta markaad fiiriso wadamada muslimiinta yani Suuriya ama xitaa kuwa carabta ku dhow waxaad arkaysaa micnaha in galbeedkaas ay aad ugu qulqulayaan سيسي وآمسين يهي وإسلاميين وإخوان المسلمين وكان وآمسين يهي القاعدة هراي آيين أوليه لكن قلباتك أي كليهين وحد دعي لكن واقع هريا لما أنتو إنا لا تعاملنا معناها إنا ما أنت مسؤولين عالم كيه قايمين إن أي سهلنتي مسؤول هبل إنا قطان ما يلعد لا كما إنا إيمان معناها نكاس قلباتك وحو أودا قف صومالي ما أنت دا قاضي إنو كو قنعيو عيدن كاس إتوبيانك معناها إنو نبتقلية دولات كووض إنا كو قنعيان إيا كو قنعيو معناها إيقا مصلحة دو وي قانان هذا بالصوريا وزيرة أرميها دي بدا الجرمالكا هويني دان أو مركز يعني أداد أفيرستاني قلباتك معناها ما أنت مثلا وحضرك سينا إسلا صعدان قارهان مركا كالي نميدو يوروب يعني بحضوان قليسا صدح وزير أرميد دي بديد الدولة هبل أيا وطن بوغضي waxaa hor socday oo la socday ina shay aan ku tilmaami karno xitaa saxaafadda ay ku tilmaantay macnaha dalaalin shay macnaha sidii inay ayada wadato kale macnaha sidii macnaha magaca waxaa jirta Soomaaliya oo hortii la adeegsan jiray hooyadii adeegsan jirtay dhigtay dhoodimi wax saas oo kale macnaha sida dalaalin ay wadato kale iska ag socdo oo Axmed Sharci la kulmayeen waxaa jira hadal uu yiri Axmed Sharci macnaha hatta uu kali anaga hatta markaan la tacaamulno Yurubiyaankan waan ognahay حقيقته وان أقنعي وزير كاس أرميها دي بدأ
jarmalka wasiiradda arrimaha dibadda jarmalka iyo wasiirkan kale faransiiska markii axmed asharci la kulmaayeen yani axmed asharci si wuxuu u salaamay micnaha qabow aad iyo aad u qabow si aad u qabow gacanta micnaha saas xataa haddii aad fiiriso luuqadda micnaha jirka ay dhahan body language luuqadda jasadka haddii aad fiiriso waxaad arkaysaa micnaha uu isa soo yara qalloociye kadibna gacantuu saas faraha fiidooda ugu soo taagay midka faransiiska sidoo kale wasiiraddan wuxuu yidhi yani halkaada taagno ayadoo la fiirinaya micnaha yani saxaafadda ay ku tilmaantay annagana aan aragno micnaha dhar aanan munaasab ahayn inay soo xiratay dhar aanan munaasab ahayn micnaha inay soo xiratay oo qaab yani anshaxuma ay u imaado micnaha adiga wasiirad baa tahay mas-uul ayaad la kulmaysaa mas-uul suuriya matalaayo lama kulmaysid micnaha hebel jamaaca matalaayo ama lama kulmaysid qof si ah lama kulmaysid micnaha mid ciidamo shisheeye ay keenaan ama qaarsaar waxaad la kulmaysaa micnaha nin suuriya matalaayo bashaar al asad lama kulmaysid tartuur lama kulmaysid sida ay dhahaan oo kale shabiixa lama kulmaysid waxaad la kulmaysaa micnaha nin suuriya matalaayo shacabkaas muslimka intaas sidaas sunniga waxaad ku tilmaam micnaha nin ayaga ka mid ahoo matalaayo aanan daa'ifi calawi ahayn oo meesha la saaray aanan ahayn marka waxay ahayd inaad dhar munaasab ah xirato inaad micnaha si caadi u labisatay ahayd teeda kale yani suuriya isbedel ayaa ka dhacay ma ahan yani dadkii wax loo meerin jira oo kale micnaha ma ahan ashyaada maqaarsaarka lagu tilmaami kara ma ahan ee waxayin aanan la aqoonin inay mas-uul galbeed la kulmaan uu ka yahay micnaha sidii yani mariikha inay tageen oo kale karazay xamiid karazay waxyaabaha noocaas oo kale kadibna way gudaha galeen meesha wada fariisteen yani saxaafadda ay galbeedka ku leeyihin muxuu u salaami waaye micnaha ayaga inta qusaysa waa intaas muxuu u salaami waaye halka daqiiqadan aan ka hadlayno daqiiqadan hadda aan hadlayno aan uga faa'iidaysano runtii yani ghaza caalamkina kasii jeestay bal xitaa waayadii hore waa laga hadli jiray dhammaanteen aan kasii jeesanay ka aamusnay qabow yani xilligaana hore dhulka shaam waxaa ka jiray qabow yani aanan caadi ahayn yani daqiiqadan hadda aan kula hadlaayo jasiiradda carabtan joogaa dabcan qatar waa ogtahay daqiiqadan hadda aan kula hadlayo waxaa ii daaran micnaha hiitar ayaa ii daaran waliba yani qabow micnaha waa xilliga qabowga halka dhulka shaam mar walbaad waqooyiga aad micnaha tabuuk sacuudiga haddii aad tagto baraf ayaa soo do urdun baraf ayaa ka do suuriya aslan yani xilligaan oo kale waxay noqotaa baraf ayaa ka do marka dhulka shaam inta badan baraf ayaa ka do ghaza shaam ayay ka mid tahay ila sawir qof xero teendhadaas ku jiro teendho ku jiro oo yani qabowgan barafkan da-aya yani hadda dadku waxay maciin bideen koronto horta ma jirta iska dhaaf dadku waxay maciin bideen teendhada hoosada macnaha god inay ka qodaan sida qabuurihi oo kale inay galaan bal ciiddaas inay qabowga ka yarayso hal dowlad oo isku mashquulinaysa oo le ma arkaysid micnaha malaayiintan ragga iyo malaayiintan dumarka umuurahooda waase markuu bashaar al asad uu dhacay mustaqbalka siduu noqon doonaa krismaska ma loo dabaaldegi doonaa micnaha inta qosaysa waa intaas malaayiintaas bani aadamka ghaza lagu gumaadaayana danka ma lahan laakiin alxamdulilah ani wallahi alcadiim aniga hadda daqiiqadan aan kula hadlaayo ani marxalad micnaha inaan quusto ama aan niyad jabo waxay igu dambeysay 8 Decembertii aan soo dhaafnay Suuriya markay xirooday sababtoo waa darsi rabbaani hal qof oo filayay malahan 5 milyan oo qaxooti ah oo meel hebel joogto intaasoo milyan oo xirada Zaatari Urdun joogto intaasoo joogto boqolaalka kun ee xabsiyada ku jiray maleeshiyaadka Iiraaniyiinta Ruushka malcuun walba niyadada ku soo dhacayo micnaha qadarta Ilaahay cid filaysay malahan Bashar al-Assad uu dhici doono cid filaysay malahan يعني إنه إسبدل كاصدع دونه معناها سوريا أو نص مليون عمر موالنتها تضبط بقرة كن أو قفلة دلي انتاسو ملايين إلى بركعية انتاسو صلع يسحرير تبني داس كون اللواي هل مر إلهي وكقاضي منها الضبالكاس ظلمك هل مر أزولي معناها هو الرجاء فلسطين إني حروبي دونتو عد والبعض ظلمك كعبانيس إني حروبي دونتو مستقبل كدمان إنه إفايو معناها مداس وامد إن شاء الله لقد ماضي موضوعنا جالسين إذن لو ذاقو عمر إنشار السلام عليكم